بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا ولا ليال معدك إسبين وقبرتين arrimaha horumarinta bini'aadamka oo loogu talagalay waxyaalaha lagu horumarinayo shaqaalaha iyo waxyaalaha la xiriira maanta waxaan rajeynaynaa insha Allah haddii la yiraahdo inaan codsi nooga yimid dadka ku xiran YouTube channelkeena risk management wax la yiraahdo oo af Soomaali ku diyaarsan يعني waxaan u maleynaa يعني koorso muhiim ah waaye insha Allah casharo oo serial oo isdaba socdana waa ka qaadan doonaa wixii alla naga fahansiyo marka waxaan ku bilaabeynaa horta ereyga risk waxa la yiraahdaa waa qatar af Soomaali saas loo yiraahdaa qatar managementigana waa taqaaniin waa soo barateen wax in la maamulo qataraha in la maamulo muhiimadu intaas waaye hadafka laga leeyahay wax waaye qatarta jirta in la yareeyo saameynteeda ama in la tirtiro marka inta badan qatarta jirta in la tirtiraahay ma dhacdo laakiin waxa badan qatartu haday dhacdo in la yareeyo saameynta ay yeelanayso ayaa la dhahaa taas risk management la yiraahdaa marka waa maxay risk management ama waa maxay maamulka qataraha saas anagu dhaxno kala waaye yani wax kale ma ahan wax waaye risk management wax waaye waa talaabooyin in la qaado lagu dabagalayo jihaynta shirkadda ama qataraha shirkadda soo wajahaya sidii lagu yareey lahaa ama lagu jihay lahaa ayaa la yiraahdaa risk management taas lahaa waxa lagu qeexaa tilaabooyinka ama activitieska lagu dabagalayo ama lagu jihaynayo qataraha shirkadda taas la yiraahdaa qaab qoto dheer hadii aan u sii faahfaahino waxa la dhahaa in la sheego lana qiimeeyo lagana hortago qataraha yani waa in la sheego sheegitaan macnaha sheegi in la cadeeyo yani in la qiimeeyo iyo in la kala hormariyo qataraha tusaale ahaan sheegi horta inaad garato sheegitaanku waa inaad garato waa identification wixii inaad garato waa qiimeyntan wax waaye inaad shaygan inta uu la eg yahay qiimihiisu ama saameyntiisu inta la eka karta inaad qiimeyso ayaa lahaa tusaale ahaan inuu motorka dhan ka damo iyo in yani motorka qayb kamid ah sidoo kale olyadoo kale ay ka go'do yaa dhib badan marka waa qeexi yani waa sheegay riskiga haysto oo waxaas leedahay kabacdi waxaad qiimeynaysaa effectiga oo kugu yeelan karo ayaa qiimeynaysaa effectiga oo kugu yeelan ama saameynta oo kugu yeelan karo ayaa qiimeynaysaa markaad saameyntaas qiimeyso kabacdi waxaad sameynaysaa waxaad kala hormarinaysaa qatarta ay adag tahay inaad ka badbaado ayaa waxa ka hormarinay qatar aad la sii noolaa karto ayaa ka dooranaysaa tusaale ahaan motorka dhan uu ka wada damo يعني iyo ina bahalkii ahay olyadu ay ka halawdo ya daran marka taas oo kala ayaa la karaa marka hadii marka shaygi aad fahanto sheegitaanku ina shaygi fahanto qiimeyntan aad ku sameyso mid walba intuu la eg yahay ka bacdina aad kala hormariso qatarahaas ku imaan kara shirkadda ujeedada ugu weyn oo laga leeyahay ay tahay yareynta iyo dabagalka iyo feejignaan dheeri in laga haysto saameynta ku imaan karto shirkadda ayadoo loo marayo qiimeyntaas macnaha wax waaye waxaan u maleynaa waa ku dheeraaday wax waaye sheegitaanka iyo qiimeynta iyo kala hormarinta saddexdaas shay asaasiyad u ah ujeedka ugu weyn oo laga leeyahay wuxuu yahay in qatarahaas la yareeyo
waaye macnaha ujeedka ugu weyn oo laga leeyahay waxa waaye in qatarahaas la yareeyo ayaa la yiraahdaa ujeedka ugu weyn oo laga leeyahay marka halkaas waaye marka waxyaalaha asaasiyaadka ah waana intan waa in kugu soo sheegay asaasiyaadka waxa waa shay qatarta horta qataraha jira qiimee qatarta oo yani intee la eg tahay macnaha intee la eg tahay say ku saameyn kartaa iyo kala horumarinta qataraha saddexdaas shay waaye waa asaasiyaadka oo risk management marka risk management waa tilaabooyin loo qaadayo yani sidii loo jihay lahaa shirkadda riskiyada soo wajahaya ayaa lahaa marka intaasan kusoo gabagabeynaa aad u mahadsantihiin insha Allah casharo kale oo taxanaana waa ka qaado doontaan waa mahadsantihiin wixii faahfaahina insha Allah haddii la yiraahdo numberkaas ayaa nagala soo xiriiri kartiin dhammaan qofkii rabo halkii ahaa buuga iyo waxyaalahaas iyo koorsada waxa la xiriira aad u mahadsantihiin salaamu calaykum